الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما. سؤالهن أنسي وضو سؤاشتني وحا إلا هاي nin mas-uulaha soo qoran magaciisa sheegin oo madaxda Soomaalida malaha kamid ah wuxuu leeyahay meel baan qandaraas ka qaadanayaa madaxda iyo mas-uuliintana waan kamid ahay tartanka isaga ah ee la qaadayo anigu waan ku guuleysanayaa oo waan helayaa cid caawisaa jirta xukunkeedu muxuu noqonayaa sida adiguba ka shakideed iska fahamtay xukunkeedu waa xaraam sax ma aha meeshiina waan ka shaqeeyaa haddana tartankii baan ku jiraa haddana waxaan hubaa inaan ku guuleysanaya taa tartanba lama idhaho khiyaamo marka tartamada noocaasi waxay xalaal noqonayaan ama qofkii ay u xalaaloobayaan qaadanayay marka uu ummadii tartan dhaba la galo laakiin markay muxaabaad tahay dheefsiin isaga la dheefsiinayo loo eexanayo ama lacag laga qaadanayo ka qaadanayna waa ku xaraamo waa laaluush adigaaga sidaa ku qaatayna dee waa boob iyo khiyaamo waa xaraam marka aad looga feejignaado. Mustafa Gaalkacyo ka soo qoro waxa uu leeyahay masjid baan dhaafaa markaan salaadaha jamaca tegayo waxaanan u dhaafaa salaadu aad u dadajiyaa ku si degan u tukanayaan gaara iga durugsan ka waran dhib male waa salaadu waxay u baahan tahay deganaansho iyo degdeg la'aan oo nabigu sallallahu alayhi wasallam in asxaabiyo tukanayay oo agtiisa ku tukado dumaaniinada shayga la ilaa ka tagay sida xadiidka saxiixa ku sugnaa salli fa innaka lam tusalli bikum tuko taadi ku noqon ma tukanini marka si degan baan u tukanaynino rukuucda iyo sujuudda iyo aad u dadajinay sidii haan la weeraaminayo kale marka haddii aad u aragto salaada in uu wax u dhimayo masaajidka kugu dhow adiguna u naseexee ونصح لكل مسلم قف كستو walaalka waa lala taliyaa hadii uu naseexada qaadan waayo sixi waayana kuwa kale salaada si fiican u tukanayna tagtaa dhib male waliba masaafada dheerna waxa lagu qori doonaa insha Allah ajri dheeraada. Maxamed Boora muu ka soo qoro wuxuu leeyahay qofku ma tasbiixsan karaa isaga oo meel buuqa fadhiya iskana qayilaya mala mafrashiyadii Soomaalidu ka sheekaynaya meel laga buuqayo ku qaylaya marka tasbiixda ma wadi karaa iyo xamdiga jawaabtu waxa weeye wixii khayr la qofka laga joojin maayo wadi karaa tasbiixda iyo xamdiga laakiin waxa fiican inuu qaadkaana iska daayo buuqaana iska daayo oo waa dhikri qalbigu ku culaya ku safaynaya inuu meel labada midnaba aan lahayn la tagaa wanaagsan oo waqti fiican oo degan yahay oo dhikriga iyo tasbiixda labadaba wado laakiin amalkan khayr kalaha wada ka joojin meeyna wadi meel kastuu joogo udkurullaha kafiran ilaahay in badan xusabaalay meelaha noocaasana waqtiyada laga tagayo dhikri baaba la yiraahdo dhikriga majaalista subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa allah astaghfiruka wa atubu ilayk markaad majliskiya meesha fadhide ka kacayso dhikrigaas la akhriyaa المهم وودي كرا لكن waxa ka wanaagsan inuu iska daayo meesha iyada iyo waxa uu cunayeen wanaagsaneyn. Saasha Cismaan waxa ay fiilambu ka soo qoray wuxuu leeyahay qofku marka uu daadiisu weynaato lacagtii ganacsiga aan idhaahdo ee taamiinka shuuranka baalka la ilaa caymiska ayaa la siiyaa oo loo soo celiyaa marka maxay noqonaysaa xukunkeedu waxa ka horeeyo horta caymiska waa laba nooc midna waa mid lagu qasbayo midna waa mid aad ikhtiyaar leedahay caymiska waa laba ganacsiga oo de wadamada aad joogtaan caymiska ganacsiga u badan marka caymiska ganacsiga kii la idinku qasbay aan laga maarmaynin ka wad gali kartaa de wad ku qasbantay oo barafkii waxaad ku dhaqaaqdaba ma haysid laakiin ka aad ikhtiyaarka u leedahay gali meysida waad iska daynaysa oo muaamaladiisu waa xaraam marka hadaba ka qasabka wixii lagaaga jaray markaad weynaato wad qaadan kartaa ilaa wax xaqaaga iyo xoolahaaga oo laga jaray labadaas aynu kala qaadaynaa
caymiskana waxaa fiican kiisa la ydhaha tacaawuniga ee dadku iyagoo ikhtiyaarkooda le ay iskaashadaan ee shareecadda waafaqsan ee caawimada ku salaysan. marka labadaasaynu kala qaadaynaa. wixii faahfaahinaya intaa kasii dheeraadana waxaad weydiin culimada waaqica aad joogto aqoonta u leh shareecadana garanaya. su-aasha koobaad waxaa soo qoray cabdirasaaq, wuxuu ka soo qoray hadaaftimo. waxa uu ina weydiinayaa ninka la waayay xaaskiisii, ama aan idhaahda ee xaaska ninkeedii la waayay, maxay yeelaysaa? miyay fadhiyaysaa? ma fasakh way qaadanaysaa? way sugaysaa? maxay yeelaysaa? jawaabtu waxa weeyaan, mar haddii muddadii dheeraatay qaadigay u tegaysa. meesha ay joogto qaadiga fadhiya ee ummadda islaamka u fadhiya ee arrimaha qoyska qaabilsan bay u tegi. cadaymay keeni iyo cabashadeeda. been inay ku dartana oo muddada ay ka been sheegtana sax maaha, waa qalad. markay dacwadeeda qadinto cadaymaheedana keento, qaadigaa go-aan ka gaari doona oo waktiga la sugayo iyo waktiga laga fasakhi karo taasuu qiimeynaya, iyo khatarta uu galay, meeshuu galay nooca ay ahayd, iyo in la baafin karo. waxyaabahaasoo dhan buu isagu qiimeyn doonaa. markaa haddii uu ku qanco inuu qofkani dhintay la waayay, fasakhaad buu u jari doonaa, xoolihiisii baa la dhaxli. laakiin dee arrin sahlan maaha, mar haddii xaaskiisii la guursanayo xoolihiisiina la dhaxlaye, go-aan maxkamadeed bay u baahantay. kawsar su-aasheedu hargeysa kasoo qorto waxay leedahay, maxram dadaan walaalnay baa jiro xajka tegaya, ana xajkan tegaya, laakiin kala dayuurad baanna. markaa dadka aanu kala dayuuradda nahay miyay maxramii noqonaya? jawaabtu waxa weeye maya. dee waxaa la doonayay maxramku inuu ku raaco oo uu ku wehel yeelo, dee kumuu raacin. adna meel baad martay, isna meel buu maray. markaa waxaa fiican inaad midaysaan duulimaadka oo midkiinuun dib dhaco, midkiinna soo horu maro. taasaynu ku talinaynaa. maadaam aad tegaysaan labadiiniiba, adigee maxramkaagiiba, dee fursadda hagaajiyo ka faa-iideyso mideeya duulimaadka. su-aasha kale cabaas baa hargeysa kasoo qoray. isaguna waxa uu leeyahay, haddii markaa adaanka dambe la adaamaya laga tago, alsalaatu khayrun min annowm, adaankii miyay dhibaysaa taasi? jawaabtu waxa weeye maya. adaanku sidiisaba waa sunne, oo haddii qofku aanu adaamin salaadiisii ma burayso oo waxba ma noqonayso. alsalaatu khayru min annowm uu ku jirtaana dee waa qeybihii adaamka mid ka mid a, salaada subax. haddii markaa laga tago, adaankii wuu iska ansixi, ma burayeysna. marka laakiin dee in laga taga maaha, in laga taga maaha. qofkuna waa in la xusuusiya haddii la ag joogo. salaadiina waxba noqon mayso, salaaddii waxba noqon mayso. laakiin cibaadadu sida ay mashruuca ku tahay ayay tahay in lagu fuliyo, oo adaanka hore iyo ka dambea lagu daraya alsalaatu khayru min annowm. markaa mar hadday mashruuc ku tahay, inuu qofku ogaan uga tago waa qalad. hadduu cibaadadii ogaan uga kala tagana way buraysa. laakiin haddii aanu ogaan uga tegin waa loo cudurdaari. su-aasha cabdifataax hargeysu kasoo qoray wuxuu leeyahy, salaada subax baa igu adag. uma kasta laakiin way igu adagtee dembi miyaan ku leeyahay? jawaabtu waxa weeyaan, maxay kugu adkaatay? waxyaabahay kugu adkaatay mar baad adigu sababteeda yeelan kartaa. haddaad habeenkii oo dhan facebook kusoo jeedo oo aad dadka la sheekaysanayso, dee waxa aad ku dhacday gef baad ku dhacdo, inaad kici weyda adigaa sabab u ah. rasuulkeenuna sala allahu calayhi wasalam wuxuu diiday annawma qabla alcishaa walxadiida bacda alcishaa. salaada cishaa-i ka hor in la seexdo oo cishaagii baa tegaya, iyo in sheekada la dheereeyo salaada cishaa-i kadib oo caweysku dheeraado. wax khayra mar haddii aanu lahayn. marka taasina waxay tagsiinaysaa salaadii subax. marka waa inaad iska ilaalisaa salaadan subax. waxaa khatarta ku haya inaad sabab ku yeelato.
laakiin haddaanad sabab ku lahay inay tay hurdaweynaan iyo xanuunku haya waa lagu cudurdaari adiguna dadaal. ilaahayna wuxuu uhi fattaquu llaha ma statactu, inta aad karaysaan ilaahay ka cabsada, markaad intaad karaysa ha karanin. cabdiraxmaan hargeysu kasoo qoro wuxuu leeyay gaalka haddii la salaamo ma nijaas baa? maya, nijaas maaha. qofka basharka ah ee bani aadamkii gaal iyo islaamba waa daahir, nijaas maaha. markan uu ilaahay yihi inama almushrikuuna najas, mushrikiinta dabcaabudka ama gaaladu waa nijaas markuu ilaahay yidhina waa nijaas macnawiya oo kufriga iyo gaalnimadu ay wadato, oo iimaankuna dahaaru wataa. subxaan allah, ina almu'mina laa yarjus, gaalnimaduna nijaas bay wadataa macnawiya, dafiraadu ilaahay dafiray daraaddeed qofkani. laakiin jirhkiisu dee sida keenoo kale un weeye oo nijaas maaha haddii aada gacan qaado. hadduu dee qofka muslimka ahay wasakh ku leeyahy gacanta ama gaalkiiba ku leeyahy, taas waa xaalad gaara, laakiin waxay ku kala duwan yihiin labada bani aadam xagga jirhka ma laha. wallahu aclam. su-aashan waxaa soo qoray ciise ninka la idhaahdo kiniu ku soo qoray. waxa uu leeyahay waxaan doonaya in wax laiga sheego kayfiyat alxaji aw kayfiyat alixraam lilxaji waalcumra, sida loo xidhanaya xajka iyo cumrada. kolley waxaad u baahan tahay mar haddaanad aqoon u lahayn inaad culimo raacdo oo ay kuu sharxaan cashar si aanad u qaldin, ila waa cibaado cumrigii hal mar lala imanayeen. laakiin siyaabaha loo xidhaa waa 3 siyood. mar waxaa la wada xidhaa xajka iyo cumrada oo waxaa la yidhaahdaa qiraan, labayk allahuma xajatan wa cumra. markaasaa dee la israacinayaa camaladii. marna waxaa la xidhaa xajka oo keliya oo waxaa la yidhahdaa ifraad, labayk allahuma xajatan. marna waxaa la xidhaa cumrada ayaa la horreysiiyaa, xajkana maalinka 8aad baa la xidhaa, labayk allahuma cumratan buu ku horreysiinayaa. markaa 3daas siyoode loo xidho 2 jeer waxaa kugu waajibaya inaad neef qasho, oo waa marka aada xajka iyo cumrada israaciso ama aada cumrada horreysiiso. tamatuc iyo qiraan baa la ydhaha. hal marna neefkaas kuguma waajibaya, waa markaad xajka keligii dhammaysato, haddaad doonto cumrada waqti dambeba la kaalayo. marka intaa wixii kasii badanee faahfaahina waxaad u baahan tahay culimada aada la socoto inaad ka faa'iideyso. su-aashan waxaynu soo weydiiyey cabdillaahi hargeysu ka soo qoray. wuxuu leeyay ay rabaysan haddaan haysto ma u maydhi karaa? oo ma dadaad u maydhaad weyday? dad iyo dunyo kale u maydh, laakiin ay maxaa kugu warwareejiyey? ma gaal baa tahay gaalada ayaa ari ka dhigtee? ayga rasuulku sala allahu caleyhi wasalam wuxuu tilmaamay in meelo gaarahun loo haysan karo. dee qur-aanku wuxuu inoo tilmaamay in lagu ugaadhsan karo. marka hadduu qofka u ilaalinayo xoolihii iyo beertiina waa la mid, laakiin guriga laguma haysanayo. haddii uu dee qofkii isagoo qoyan afkiisii iyo jirhkiisii mariyana waaba kii nabiguina baray sala allahu caleyhi wasalam in 7 jeeroo marciid yahay la maydhayo. afka ayaa uu sheegay, jirhka kalena waa la mid. marka waxaa habboon qofka muslimka inuu diintiisa ku egaado. danteennu diinteennay ku jirtaa, waana ilaahay baana inoo dooray subxaana wa tacaala. dadkana ilaahay abuuraa yaqaana iyo xayawaankaba. marka mar hadduu qoyan yahay ma taabanaysid, mana haysanayso, guriga kuma haysanaysid. sulaymaan su-aashiisu waxa weeye hargeysu ka soo qoray, neefka baktiyey maqaarkiisa ama haraggiisa ma iibsan karaa? jawaabtu waxa weeye haa, haddii aada xoorisay ama magdisay oo dhogortii iyo xuubka aada ka saartay. xoorin iyo magdin iyo deebinba waa la ydhaah. marka dhogorta laga siibo ee sida leedarkan caadigaa laga dhigo, markaasoo kale waa la maydhayaa, waana la iibsan karaa, waa la intifaacsan karaa. rasuulkuna sala allahu caleyhi wasalam neefkii baktiye waa kii lahaa haraggiisa ma intifaacsataan oo ka faa'iidaysataan, laakiin waa in sidaa aynu sheegayno loo sameeyo, markaasaad ayaad iibsan kartaa. su-aashan kale waxa soo qoray ninka la yidhaahdo ama gabadha la yidhahdo Samiira Haybe, hargeysay ka soo qortay. waxay leedahay waxaan qaatay warqadda fasakhaadda intii uu ninkaygu maqnaa 2 sano kadib, miyaa cadadbax la igu leeyahay?
inta waxaan baraarujinaynaa fasakha inaan lagu degdegin. waxaa ka sii horeeya oo dardaarankeenna ah raggu dumarka inaanay dayicin oo ooridii ubadka kuu dhalaysay ehelkaaga ahayd ixtiraam bay mudanta sida ninkuba ixtiraam u mudan yahay. dumarkuna dee way sii jilicsan yihiin oo waa hooyooyinkeen iyo hablaheen. waa qof tarmaysa oo warshad ah oo bani aadam soo saaraysa, mar uurkay ku sidaa, marna adhaxda, marna ibtay ka jaqsiinaysa. itaal darro badan bay intaasoo arrimood ku hayaan, wahnan calaa wahnin. qur-aanku sidaa uu tilmaamayo culaysyo isa saaran baa haysta, markaa in runtii loo dabciyo aada bay waajib u tahay. caashiruuhuna bilmacruuf siduu nabigu ina baraya sala allahu calayh wasalam. marka iyadu ay fasakhanayso, fasakh wuxuu leeyahy sababo ilaa 6-7 meelahaas. sababaha haddii aan la helin oo ay been sheegtay fasakhato dee ma furmayso. qaadigii hadday laaluushto iyadoo sababtii lagu furayo lagu fasakhaya aanay jirin dee ma furmayso. haddii aanay furmin oo nin guursadana dee waa musiibo kale. markaa culimada aqoontii iyo ammaanada leh xagga shareecada inay mar walba wax weydiisaa aada baynu ugu talinaynaa. taasi waa baraarujin. laakiin hadday dhacdaba in fasakhii sharciga ahaa la fasakho, ruuxii dumarka ahayd waxay tilmaantay 2 sano iga maqnaa, toos ma u guursan karaa? may uma guursan karaysa. kol haddaa xaas ahaydeen oo uu ku furay ama lagu fasakhay waa inaad ciddo tirsataa, oo cadadbaxaagu inaad ciddo tirsataa waa lagama maarmaan. haddaydaan muddo dheer isaragoo riximkaagu maran yahay xataa cadadbixi waa waajib. oo waxyaabaha loo ciddo tirsado waxyaabo badan baa, xigmado badan baa ku jiro ay ka mid tahay atacabud. qofkan ilaahay baa ku addoonsaday, marka xataa hadduu riximkiisu maran yahay waa inay ciddo tirsataa iyada oo muddo dheer aanay is arag. mar hadday kolkii hore aqal galeen waxaanay ciddo tirsanayn haddaanay is aragba oo aanay aqal galinba. maalan way isu mehersanaayeen, mabay istaaban, markaasuu qaadigu fasakhay ama ninkii qabay baa furay, markaa ciddo laguma leh. famaa lakum calayhina min ciddatin tactaduunaha. laakiin kol hadday aqal galeen 10 sano hadday kala maqayn, maalinta la furo kadib ay ciddo tirsanaysa. marka arrimaha aada la ysaga hubsado. arrimaha qoysku waa xasaasi, xaaraan iyo xalaal bay dhex taagan yihiin. abtirsiimadii baa qaldami karta, markaa aada loo ilaaliyo, hana la dadaalo. baaraka allahu fiikum. وهذا ما أقوله وأستغفر الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.